iyo kasoo qaybgalayaasha shirkan jaraa'id waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo ama aan ka sheego madasha sabata bixinta Puntland xubnaheeda ugu sarsareeyay rag ka mida ayaa shalaytoo la xiray. waxa lagu xiray ilaa hadeerna waxaan garanayno maaha, dambi ay galeen oo aanu garanaynaa ma jiro. waxaanu maqalay waa la xiray. haddii la xiray oo lagu xiray saldhigga dhexe ee Garowe xalay 7 saac iyo bar markay ahayd baa waxaa la ii soo sheegay nimankii xirnaa in la garaacayo oo baabuur shabaqla ah la rabo in la saaro. iyagiina ay yidhaahdeen annagu shabaqlaha meesha haddii aanu dambi leenahayna waxaanu joognaa caasuumaddii, haddaanan dambi lahayna waxaanu joognaa caasumaddii. meel kale iyo degmooyin kale iyo tuulooyin nimanka aadaya ma nihin. sharci hadduu jiro meesha aanu joogno waa magaalo madaxdii wey. intaa markay ka soo baxday waa la dilay. waxaa ka mid a nimanka la dilay oo sidaa ba-an loo garaacay kaaliyaha guddoomiyaha madasha sabatan bixinta Puntland Dictor Dhegaweyne, daahir ciiro oo ahaa xildhibaan hore. labadooda sida la ii sheegayo waxaa la yidhi aad baa nimankaa wax loo gaarsiiyey, waxaana lagu saaray gaariga qaadis. ilaa haddeer oo aynu joogno meel loo dhigay haba u yaraatee ma naqaana. guriga la geysayayaa lagu hayayaa, meelo kale la geeyayaa. kolley saldhiggii dhexe oo lagu xiray ma jooginin oo xalay 7 saac iyo bar markay ahayd baa laga qaaday. halkaas waxaa ka cad in aan wax sharci ah oo nimankaa lagu haysto oo dembi yihi inayan jirinin, sababtoo ay ku tahay haddii ay dembi leeyihiin lagama qaadeen meeshii lagu xiray oo saldhiggii caasuumadda ah lagama qaadeen oo lama geeyeen meelo aynaan garanaynin. haddeer dad guryihii la geeyayaa, meelo kale loo qaadayaa waxaan naqaan ma. mar xalay baan waxaan idaacad ka dhegaysanayey barasaabka oo wuxuu leeyahay guddiga nabadgelyada gobolkaa xirnay. waxaan aad iyo aad uga xumahay kiis uusan lahayn inuu isa saaro. waxaani meeshay ka yimaadeen waxaan ognahay weeye. waxa uu warkiisa uu sal uga dhigayay barasaabku waxay galeen dembi. dembigaas oo ah waxay sameeyeen madal. sharciga aniga diidi kara madal magacaa in lala baxo anigu ma garan karo, waa wax iga weyn weeye. hadday dembi leedahay madalina, madaxweynaha dalka Puntland ayaa haddeer wuxuu ku dhawaaqayay waxaan soo samaynay madal. hadday sharci darro tahay waxay la tahay haddii madaxweynuhu maba sameeyeen, tanina taasay la mid tahay. waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka caddeeyo nimankaasi wax dembiya oo ay galeen ma jirto. waxa ay keliya oo ay ku xidhan yihiin sidee u hadasheen oo aad u tidhaahdeen war waxaasi maaha oo shirka Kismaayo lagu qabtay shir haddii la maayo Soomaali dan oo ah maaha. fekerkooda inay ka hadlaanin bay ku xidhan yihiin oo keliya, wax kale oo ay ku xidhan yihiin male. Puntlandna waxaan moodayay qofka muwaadinka ahi wuxuu wax ku hadalka uu ku oran karaa ama fekerkiisa ku cabiri karaa qoraal, suugaan, media iyo wixii la mida buu qofku hadalladiisa buu ku cabiri karaa iyo ra'yigiisa. waxaa halkaa ka muuqda inayan Puntland inayan u bislayn dimuqraadiyadda. haddeerna waxaan maqlayay
waxaa la sameeyey guddiga doorashooyinka iyo doorashooyin baa la rabaa in la gado halkaasayna maraysaayo haddii la leeyahay maxaaba doorasho la galaaba haddii la leeyahay lamaba hadli kara waxaan kale oo rabaa inaan halkan ka caddeeyo madasha sabata bixinta puntland ma aha mid wax burburisa ma mid ammaan darra ka shaqaysa ma waxay ka shaqaysaa ammaanka haddeeraan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka dhammaantiin waxaan idinkula dardaarmaynaa in la adkeeyo ammaanka inaan ammaanka wax loo dhiminin in laga shaqeeyo ammaankeenna nin shalay yimi berriba waa tegayaa haddii alla idmo waxa ishurdhani waa innaga ammaankeenna waxaan rabnaa in laga shaqeeyo baan rabaa inaan igu soo jeediyo gudoomiye waxaa sheegtay xubnaha madashani ka tirsan ee la xiray inaydan ogeyn halka la geeyey warar soo baxaya oo dowladda qaybteed noo sheegeen waxay tilmaamayaan in loo gudbiyey xabsiga ku yaalla magaalada boosaaso marka warkaas idinku ma haysaan miya adeerow anigu warkaa ma hayo waxaan keliya oo aan hayaa in nimanka meeshii lagu xiray oo la geeyey oo saldhigga dhexe garowa ahayd in xalay 7 saac iyo bar iyagoo weliba indhaha ka xiran in baabuur shabaqlaa la saaray meel loo dhigayna ma aqaanan nimanka xaaladooda caafimaad waxaa la sheegaya qaybtooda inay sonkor qabeen dhiikar qabeen bal iyaga wax waran ma ka haysaan xaaladooda caafimaad waxaan ogahay saacadaha ay baxayeen ka hor nin miyirkiisu caadiba ma ahayn wadna xanuun buu qabayay waa faysal faarax shire isaga gaariga qaadis baa lagu saaranay waxay qabeen sonkor dhaga weyne ninka la yidhaahdo ditoorku wuxuu qabaa sonkor iyo dhiikar labadaba faysal wuxuu qabaa wadna xanuun aniga maba garan karaba intaa cadaawadda la-eg iyo dhibka intaa la-eg oo dhakhaatiirtii dalka loo geysanayo maba garan karaba anigu waa wax igan weyn weeye leeyahay waxaan garan karo ma gudoomiye waxay idinku eedeeyo dad badan leeyihiin khalkhalkhalin amni bay wadaan in dadweyne baa waxyaalaha madashan lagu eedeynaya ka mid arrimo fara badan oo aysan xaq u lahayn farahay la galeen sida waxaa shirka kismaayo ka dhacay oo kaleeto hawl iyaga ma hawl u taalagay arrintan maxaad kaga jawaabsaa waxaan kaga jawaabaya anagu muwaadiniin baanu nahay shirka kismaayo waa wax quseeya oo waxa lagaga hadlayay waa wax puntland quseeyo anaguna shacabkii puntland baanu nahay xaq baan waxaan u leenahay in aanu fikirkayaga iyo afkaartayada inaanu ka hadalno oo caddayno iyadoo aan wax dhiba lahayn midaan aad leedahay ammaan darraa ka shaqaynayseenna mar walba waxaan la hadlaynay saxaafadda dib ayaa loogu noqon karaa haddaan ka hadlaynay ammaan darro mar walba warkayga waxa ugu badnayd ama warkayaga ugu badnaa war ammaanka ha la ilaaliyo bay ahayd warka keliya oo aan ku dheganahay gudoomiye dabcan dad badan oo reer puntland ah qaybtooda idinka soo aragtay idinka soo horjeeda iyo dabcan dowladduba waxay tuunsayeen inay xiriir la leedihiin dowladda federaalka ah isla markaana ay jiraan xiriir idinka dhexeeya dad ka tirsan dowladda federaalka ah oo doonaya in deganaanshaha puntland wax la yeelo marka eedeymaha noocaas maxaa kaga jawaabi lahay bismillah dowladda federaalka waxa ayan la wadaaginin puntland ama jubbaland ama dilmay galmudug oo anaga si gaara nooga dhexeeya haba u yaraatay qof iyo qofafiyaalo midna ma jiraanin wax aan inay yihiin dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya inay tahay maahay wax si gaara nooga dhexeeya haba u yaraatee ma jiraanin gudoomiye waxaa tahay gudoomiyihii madasha xubno sarsaraana xiran sidaa sheegtay barasaabka gobolka wuxuu sheegay inuu isagu xiray ma la xiriidheen barasaabka iyo hay'adaha amniga iyo sababaha loo xiray iyo halkay dadkaas ku xiran yihiin marar badan baa waxaan isku dayey ilaa intii nimankaa la xiray inaan la xiriiro hal qof oo ka mida telefoon uu leeyahay waa iga qaban waayeen gudoomiye madashan inta la dhisay ilaa maanta waa hadlayseen eedaad soo jeedinaysay marka ma isku daydeen marna dowladda iyo cidda aad eedeynaysaa intaad maaragtay la hadashaan la kulantaan waxyaabaha aad tabanaysaan in maaragtay inaad ka wada hadashaan isku dayda madashu diyaar waxay u tahay
sideeda haddii wada hadal la yidhaahdo diyaar bay u tahay laakiin ciddii lala hadli lahaa horta waa in la helo haddii aan ciddii lala hadli lahaa aan la helinin warkaagu meel ma gaarayo mana soconayso isku daydeen marka waa isku dayn wax badan baan isku dayey inaan la hadalno wax noo suuragalayna ma jiraanin waa mahadsantahay انت بتقدر كلام انا بقدر كلام بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa gabagabada hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo dowladda shacabka isimada dhammaan ummadda reer Puntland waxaan u sheegayaa ama madax sare ha ahaato ama shacab ha ahaatee nimankaas ku xiran dulmiga in xorriyadooda loo soo celiyo oo sida ay ugu dhaqsaha badan tahay loo soo daayo oo xorriyadooda ay u helaaneen baan soo jeedinayaa oo codsanayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاش سبب تفعيل Puntland annagoo ah ayaa shirkan jaraa'id iyo saxaafadda u yeeray waxaanuna rabnaa inaanu ka hadalno wax badan oo nagu kallifay oo khaldaad ah oo muuqanaya oo ka jira Puntland ama Soomaaliyaba marka ugu horeysa niman saraakiil iyo siyaasiyiin iyo diktooro intaba leh oo muxtarimiina oo dadka sharafka leh oo birmageeda la yiraahdaa ayaa la xiray shalayto ka bacdina waxaa loo qaaday meel kaleeto iyagoo la yiri dhaawacyaa la gaarsiiyey waxaan caddaynaynaa nimankaasi inay sharci darro ku xiran yihiin marka koowaad inay sharci darro ku xiran yihiin marka kaleeto waxaa dadka u caddaynaya nimankaasi inay sharci darro ku xiran yihiin meeshii ay ku xiraayeen ee laga qabtay caasimadda Puntland ayaa ama maxkamad lagu saari lahaa ama lagu hayn lahaa waxaana loo sheegay gobollo kaleeto oo gobolka bari in loo qaaday oo xabsigoodii xaggaa loo wareejiyey waana arrin maxaan ku idhaahdaa caddaynaysa inaan nimankaasi sharci ku xirayn waxa kaleeto oo dastuurka Puntland dhigaya in ninku 24 saac qofku 24 saac ka badan inaan la hayn karin isagoo aan xukun ku dhicin iyadayna qodobkaas oo qodobka meel baa lagaga dhacay waxaa kaloo meel lagaga dhacay xorriyadda qowlkii Puntland dastuurkeeda ku jiray oo ku caddaa oo qodobka 14aad in dadkii laga caburinayo oo la leeyahay yaan la hadlin dhibaatada jirta waxa weeye oo nimankaasi u xiran yihiin waxa aanu samaynayno oo khaladka ah oo ciidda ka batay oo ama Puntland ama Soomaaliya maxaad u aragtay qofku hadduu inta isqaawiyo hortaada soo maro indhahagu waa qabanayaan dadku dambi bay galeen ciidda ka batay oo aan la soo koobi karin baa la galay maamulka Puntland madaxdiisa oo madaxweynuhu ugu horeeyay maxaad ii aragteen maxaad uga hadasheen dhibaatada loo xirxirayo nimanka ama dad kaleeto loogu hanjabaya waa midaas mideeda kaleeto horta yaa sharcigii meel kaga dhacay nin hadlay oo yiri waxa iyo waxaasi waa khaldan yihiin waxa la rabay dawladdu inay ka faa'iideysato meelaha uu ka tilmaamayo mucaaradku meelaha ay ka dhaliilayaan inay iska toosiso laakiin yaa horta khaladka ku jira oo dambiga galay waxa galay madaxweynaha Puntland baa dambiga ugu weyn ku jira marka ugu horeysa dastuurkii oo qodobka dhowr iyo 10 oo maxaan ku idhaahdaa qodob oo dastuurka ka mid ah ayaa madaxweynaha Puntland ku tuntay
iyada oo loo jeedo midda kaleeto wuxuu hadda ka mid noqday oo sameeyey kismaayo shirkii ka dhacay oo ummadda soomaaliyeed dhibaatadeeda iyo dawladda wiiqideeda loogu talagalay ayuu ka qayb galay dadka halkaa isku urursaday oo tegey waa 5 nin waxay u muuqdaan xilligii qabqablayaashii iyo hogaamiye kooxeedadii sidoodii oo kaleeto inay u dhaqmayaan waxaa cabdiweli loogu soo doortay madaxweynaha maxaan ku idhaahay qolada halkaa isugu tagtay oo aad moodaysid inuu madaxweyne kaloo labaad isu caleema saaray hadduu madaxweyne kale helay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha allah u barakeeyo tiisa uu helaye inuu maxaan ku idhaha annaga naga tago oo tiisaa kale ku shaqaysto haddii kaleeto sharci ma aha inuu 2 meelood madaxweyne ka noqdo in adduunka lagumana arag lamana maqal inay dib loo arkayana u malaynayo midda kaleeto annagu waxaanu ugu talagalnay shirka iyaga inaan madasha sabata bixintu waxay u taagan tahay inay Puntland saxdo haddii laga qaadan waayo sixitaanka oo la ogolaan waayo in ama la wada hadlo ama dalka inaan wax ku leenahay dadku dalka u sameeyahay la garan waayo waxa hadda taagan waxaan ahayn baa iman doona mana aqbalayno sidii arigii in dadka qaarba mar la iska kaxaysto meel aan la aqoon lagu xirto ma aqbalayno dadku dawladdu xurmeynayay ciidamadu xurmeynayay sidaas nin walba ragga telefoon ba inta loo diraa waxa la isaldhiga imo waa la diin waxa loogu bedelay jirdil iyo maxaan ku idhaha masaafurin iyo meel ka dhac sharaftoodii iyo xasaanadoodiiba lagaga dhacay ayaa loo bedelay haddii sidaasi timaado oo sharciga laga xishoon waayo oo dadku kale xishoon waayo wax kaleeto intaa ka culus baa imanaya annagu marna intaa aanu hadlaynay nabadgelyada ha la ilaaliyo inaan idhaahno mooyee nabadgelyada meelha lagaga dhaco abaabul ma gelin cid ma caayin shakhsiyan uma caayin laakiin maamulka inaan wax ka sheegno xaq baan u leenahay madaxweynaha ka culus noqdona ma dagaal sokeeya ula jeedaa waxaan ula jeedaa dadku haddii uu sharciga ilaalin waayo nin walba waa 9 bilood buu ku dhashay waana istifaacayaa nin kasta